Assalamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warka shabakada warar TV qodobadaad ku maqli doontaana waxaa ka mid kooxda ahlu sunna wal jamaaca oo lagu jabiyay dagaalkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug tallaabooyinka ay qaadeen xildhibaanada oo rajabeel badan ku riday musharaxiin badan oo ka tirsan mucaaradka cabdikariim xuseen guuleed oo ka hadlay sababta ugu biiray ololaha cabdiraxmaan cabdishakuur kadib markii uu arkay awoodda madaxweyne farmaajo qodobadaas iyo qodobo kale xiiso leh baan idin haynaa daawadayaal haatanna ku soo dhowaada iyagoo faahfaahsan inta badan xildhibaanada labada aqal ayaan tegin teendhada afsiyoone oo musharaxiinta madaxweynaha ay labadii maalmood ee tegay ka jeedinayeen khudbadahooda waxqabadka waxaana la arkay kuraas badan oo eebere tirada xildhibaanada taga hadal jeedintii shalay ayaan xitaa dhannayn 50 iyadoo xubnaha labada aqal ay yihiin 329 tallaabadani ayaa bannaanka u soo saartay in xildhibaanada intooda badan aysan dan ka lahayn waxqabadka iyo ajendaha siyaasadeed oo ay ku doortaan hoggaanka cusub ee dalka taasi oo beddelkeeda ay doorbidayaan dhaqaale ama xulafaysi siyaasadeed arrintani ayaa rajabeel ku rida musharaxiin badan oo markii hore rabay inay xildhibaanada ku beeralxuusadaan hadal jeedintooda iyadoo kol horeba mudanayaasha ay soo saareen inta badan musharaxiin gaar ah oo codkooda ku tashanaya cidda keliya hadda faa'iidada qabta ayaa ah musharaxiinta markii hore xoogganaa ee haystay isbahaysiga siyaasadeed ee aan khudbad wax ku raadinaynin kuwaasi oo kale ah xasan sheekh maxamuud madaxweyne farmaajo sheekh shariif sheekh axmed iyo deni tallaabada ay qaadeen xildhibaanada ayaa waxaa si weyn uga carooday xubno uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha senator cabdiqani geelle maxamed oo isagu ku tilmaamay wax laga xumaado sida ay shalay u dhaqmeen xildhibaanada oo ay khudbad u jeediyeen musharaxiintii madaxweynaha doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa inay qabsanto 15 bishan May haddii uusan jadwalkeeda ku imaan isbedel lama filaana oo dib u dhac kale u keeni kara asi kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii u dambeeyey si weyn loo dareemayey ololaha musharaxiinta madaxweyne ay ku rabaan inay isaga gadaan bulshada Soomaaliyeed iyo kala jiidashada xildhibaanada oo markii horeba qaarkood lagu xirtay koontooyin gaara madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug cabdikariim xuseen guuleed oo ka haray tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa goordhaweyd fariintii ugu horeysay u diray taageerayaashiisa cabdikariim guuleed ayaa ku booriyay taageerayaashiisa inay ololaha maalmaha kooban ku garab istaagaan hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ay ka soo wada jeedaan beesha habargidir sidoo kale waxa uu sheegay inuu garab siinayo sidii dalku uga dhici lahaa isbedel isla markaana uu dhisayo musharax cabdiraxmaan cabdishakuur oo loolan adag kula jira musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxweynaha tallaabada uu qaaday guuleed ayaa ku timid cadaadis xooggan oo uga yimid madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqoor siyaasiyiin iyo ganacsato ka soo jeeda beesha habargidir iyo xaqiiqda ah in ololihiisa doorashada uu ahaa mid aan saldhig adag lahayn guuleed ayaa tanaasulkiisa kadib waxa uu hadda si xooggan uga shaqayn doonaa sidii uu taageero u raadin lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee tanaasulka guuleed waxa uu tusaale u noqon doonaa musharaxiin badan oo aan rajo lahayn balse caqabad ku noqon kara fursadaha musharaxiinta beesha kuwa si gaarana kuwa beesha abgal waxaa caawa maqribkii soo gaaray dagaal qaatay 13 saacadood oo waa berigii hore jimcihii saaka ka bilowday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug saraakiishii hogaaminaysa ciidamada dowladda ee maanta Dhuusamareeb ka dagaalamay ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in hadda la soo gabagabeeyay dagaalkaasi oo magaalada laga saaray ciidamadii ahlu sunna sidoo kale ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor ayaa galabta si nabada kula wareegay deegaanka bohol oo ciidamada ahlu sunna ay ka soo duuleen shalay galab guddoomiyaha Dhuusamareeb cabdiraxmaan geede qorow oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in magaaladu ay nabad tahay dadkii ka qaxayna ay ku soo laaban karaan maadaama ay ciidamada dowladda si buuxda gacanta ugu hayaan sidoo kale guddoomiyaha oo ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ayaa sheegay in guddi soo baara ay xul saari doonaan oo dib ay ka soo shaacin doonaan xogta khasaaraha oo dhammaystiran ciidamadii Dhuusamareeb soo weeraray ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa laba jiha galabta uga baxay magaalada kadib markii looga taageeroonaada dagaalkaasi waxaana u baxeen dhanka bari iyo galbeed ee magaalada waana labadii jihe ee markii hore ay ka soo weerareen saraakiisha aan la hadla waxa ay noo sheegeen maxaabiis iyo gaadiid
dagaal in ay ka furteen kooxdaasi isla markaana ay dhowaan soo bandhigi doonaan sidoo kalena ay faahfaahin ka bixin doonaan khasaarihii ka dhashay dagaalkii maanta. waxaa jira khasaare xoog leh oo dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed leh balse ilaa iyo hadda ma jirto koob rasmi ah oo la sameeyey waxaana magaalada hore uga cararay inta badan dadkii ku noolaa oo habeenadii lasoo dhaafay digniino hordhaca ka helayay xoogaga ahlu sunna. waa mahadsantihiin. waxay maanta wax u dhaheen nimanka nabadiidka ah ee deegaanka dhibka badan ku hayay ee dowladda iyo nidaamka dowladnimada waqti badan kasoo horjeeday iyo duulaan waxay kasoo qaadeen deegaanka Boqol hadda ayna kala hadlayo waxayna ku soo duuleen caasimada galmudug ee Dhuusamareeb. intaa ka bacdi waxaa ka hortagay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo ciidamada galmudug. runtii waxay ciidamadu muujiyeen fooljignaan, geesinimo, karti iyo dowladnimo iyo isku duubni. waxaan ku guulaysanay oo ciidamada qalabka sida dhammaan ay ku guulaysteen inay ka saaraan duulaankii ay soo duuleen deegaanka ama caasimada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, inay ka saaraan nimanka argagixisada ah ee nabadiidka ah ee mar walba u caadaystay inay deegaanka iyo dadka iyo dowladnimada ay ka hor yimaadaan. waqtigu markii uu ahaay 10 saac oo habeenimo ama aroornimo xalay aqdi dhexe waana soo gaaray waqti dhow. ilaahay baa mahadda iskale waa laga guulaystay waana laga saaray dhammaan caasimada iyo daafeeda. waxaa kaloo laga qabsaday oo hadda inay kala hadlayaa taliskii Boqol oo ay ka dhibaateynayeen nidaamka dawliga iyo ciidamada qalabka sida dhammaan ay ka dhibaateynayeen. haddana inay kala hadlayaa ilaahay baa mahadda iskale difaacadoodii iyo goobihii ay ka soo duuleen aan joognaa. waxaan u cadaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo dowladnimada ummadan inay dowladnimo wadankan inuu dowlad noqdo la guulaysto ummaddu ay gaarto midnimo iyo horumar. cid kastoo jecel waxaan u sheegaynaa haddana ay ciidamada qalabka sida inaan gal kastoo ay galaan uga daba tagi doono inaanan ka hari doonin ilaa iyo kan ugu dambeeya aan soo qabanno iyo oo weliba maxkamad soo taagno inaanan ka hari doono insha Allah. maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha maanta dagaalkii dhacay ee xalay 10 saac bilowday xilligana soo gaaray inta uu leeyahay? runtii sideedaba anagu waxaan u dhaaranay dalkan iyo dadka iyo diinta inaan difaacno qof kastoo ku soo duushan aan ka hortagno. waxaad ogtihiin marka aan ku leeyahay diinta qofku haddii uusan amni haysan nolol haysan inuusan cibaadaysan karin inuusan shaqaysan karin inuusan horumar gaari karin. annaga marka wax khasaaro oo sideedaba na soo gaaro ma jiraan. mar walba waxaan u diyaarsanahay naftanadaan aan u bixinaynaa inaan cid walba oo dalkan gudaha iyo dabadda uga soo deesho aan difaacno oon ka hortagno. sidaa darteed annaga dee wax khasaaro oo na soo gaaro ma jiraan. laakiin sida aan idin xaqiijinaya maadaad uga tagtiin dhammaan dadka maleeshiyaadkii iyo dadkii ay soo qaldeen runtii horta waan ka xunnahay. qof Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed inuu dad danley ah oo diinta ku gambana oo aan ka dhoweyn xaqiiqda markii aan ka hadalnay aan ka dhoweyn kuwa argagixisada ah ee argagixisada caalamiga ah ee ugus kuwa aan ka dhoweyn inay adeegsadaan oo si qaldan u adeegsadaan. marka mar walba annaga dee khasaare xagga naga ma jirto. haddii aan dhaawacno iyo haddii aan dhimanaba waxaan u dhimanaynaa waa dalkanaga, waxaan u dhimanaynaa waa dadkanaga. waxaan u dhaaranay inta iyo inta ka badanba inaan nafteena bixino haddana diyaaran u nahay. waxaa kaloo khasaare badan oo soo gaaray iyaga xaggooda. waxaa la qabtay dhammaan inta badan maleeshiyaadkii ay soo qaldeen oo ay dagaalka soo geliyeen. waxaa la qabtay agabkii ay wateen sida gaadiidka aad aragteen oo dhammaan telefishinada iyo idaacadaha aad ka aragteen. waxaa lagu daba joogaa hadda firxadkoodii. haddoon idinkala hadlaya taliska weyn. waxaan idin cadaynayaa insha allahu dhammaan deegaamada iyo meelaha ay gabaadka ka dhigan doonana inaan tegi doono si aan u soo afjarno. waayo nimankaasu deegaankan galmudug iyo meesha hadda aan idinkala hadlayo iyo inta ku hareeraysanba dhib badan bay ku hayeen.
waxay diideen horumarka dawladnimada, waxay ka hor yimaadeen waxbarashadii, waxay ka hor yimaadeen caafimaadkii, waxay ka hor yimaadeen isdhexgalkii bulshada, waxay ka hor yimaadeen dhismaha ciidamada qalabka sida in la dhiso ay dhismaan. sidaa darteed waxaan ii caddaynayna meel walba oo ay galaan in uga daba tegi doona insha allah. waa tahay daawadayaal, waxaa intaas inooga dhan warkeenni waad kala socoteen shabakada Warar TV. intaaynu ku kulmi doonno warkeenan midka xiga waa bahda shabakada Warar TV isku duuban oo idinla dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo.